toddobaadkan Facebook waxa ay ku dhawaaqeen inay tijaabinayaan waxa ay ugu yeedheen aaminaad muujiye si loo helo mucaawano joojisa waxa lagu tilmaamo warka beenta ah. mashruucan waxa uu siinayaa qofka isticmaalaya war buuxa sheeko kasta sida ciddii daawacday waxay aaminsan yihiin iyo hab loo raadiyo inuu sax yahay iyo isla markaa cidda leh. Facebook waxa ay sheegeen marka hore inay ku bilaabi doonaan koox yar oo wax daabacda dabeedna ay ballaadhin doonaan. iPhone X waxa aad moodaa inuu dhaafay qalab wejiga la gashado oo sidaa ay u eg tahay. Sharikad reer Vietnam oo la yiraahdo BCAV ayaa isticmaashay san laga sameeyay silicon oo laba dhinac laga sawiri karo oo laga yaabo in uu dul hadhayn karo habka telefoonka casriga u baadho garashada qofka. khubarada dhinaca amniga ayaa waxa ay sheegayaan soo dhexgalka noocaasa inaan madax bannaanin loo xaqiijin. haddaad moodaysay dagaalkii arrimaha lagu baadho internetku inuu dhammaaday ku soo dhowow ka u dambeeyey ee Mozilla ay samaysay Firefox Quantum. sharikaddu waxa ay sheeganaysaa xawligiisu labanlaab inuu ka dheereeyo kuwii ka horreeyey oo 30% ay ka yar tahay xusuusta kombiyuutarka ee ka ugu dhow iyaga Google Chrome. kuwa sameeyey waxa ay ammaanta siinayaan hab lagu magacaabo Rust oo ammaanka kombiyuutarka iyo xawligiisaba wax ka beddelaysa. ugu dambaystii Shiinaha ayaa waxa ay soo saareen hab xoogga mashiinka kombiyuutarka Paydu oo markaa aad cod ku furan karto ay ku magacaabeen Raven H. waa sidii qof caawinaya qaabka hadalka hore loo mariyey. waa mid kuu shidi kara leydhka gurigaaga, taksi kugu yeeri kara, kuu duubi kara telefishanka kaad jeceshahay wakhtigaad doonayso. mashiinka inaadeerkii waxaa lagu magacaabaa Raven R. waa mid samayn kara qoobka cayaar